بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan u mahadcelinaynaa maamulka degmada Xaraale xildhibaanada dowladda galmudug ka soo jeeda degmada Xaraale ganacsatada odayaasha dhaqanka dhammaan bulshada Xaraale sida runtii mas'uuliyadda leh isxilqaanka iyo iska wax u qabsan wax ku dhistaan isugu taageen hadda aan ka nimid isbitaalkii oo isbitaal weyn ah oo ku dhisan ama lagu dhisayo gurmadkaas iyo inay isku tashadaan haddana waxaan nimid saldhiggii booliiska oo qabiyo ah oo bilow fiican leh waxaan rabnaa saldhiggana in la ballaariyo sida warbixintan la ku siiyey meelaha oo u baahan yahay oo spaceka ugu baahan yahay loo ballaariyo annaguna halka uu marayaan kala qabsanayna oo soo biirayna meesha uu marayaan kala qabsanayna isku tashigii iyo isxilqaankiina sidii noo wada meesha uu joogaana kaga biiraynaa waadan soo gaarayaan haddii la yidhaahdo maalmaha soo socda iyo waqtiyada soo socda annaga taageeradeennii aan ku biirinaynay saldhigga ninkii wax bilowda ama wax haysta wax lagu daraa farxad weyn runtii waxaan galabtay madaxweynuhu halka kan ka dhaxdhigay Xaraale dugsiga sare ee Xaraale madaxweyne meesha naga soo horjeedo wadada noo dhaxayso waxa ku yaal iskuulkii maartay primary-ga halkan waxaan ugu dooranay marka inaan noqoto maartay dugsiga sare ardayda marka ka soo baxaan iskuulka kani waxaan rajeeyo doonaa in dhaqso u bilaabo doono madaxweynuhu nagu amray inaan si ugu dhaqsiyaha badan aan dhismaha u bilowno haddii la yiraahdo wasaaradda marka annagu amarka madaxweynaha fulinayno waxaan rabnaa haddii la yiraahdo inuu dhagax dhigaan usbuucyada soo aadanba jawaabtiisa la arki doono marka khudbadii ugu muhiimsaneed iyo dhagax dhiga iyo waxa la higsanayo madaxweynaha ku soo dhaweey doona isagana noo faahfaahin doona haddii la yiraahdo salaan kadib Xaraale mashaariic muhiim ah oo aad isxilqaan iyo iska wax u qabsan ku dhisateen soo marnay aan garab ka siinaynay hadda midaadna adinku dhisayno oo ka yimid dhinaca dawladda dhagax dhignay halkan sida wasiirku u sheegay waxaan dhagax dhignay dugsigii iskuulkii sare degmada Xaraale oo runtii aad u ballaaran sida hadda baad arkayseen masaafada uu la siiyey iyo dhulka uu ku fadhiyo waxaan rajaynaynaa inuu ku bilowdo asbuucyada soo socda wasaaradda waa u dirnay oo ku amarnay waqtigii loo asteeyay inay ku bilaabato waqtigii loo asteeyayna waxa ka dhiman bariyo insha Allah wasiir sida qorshuhu ahaa hawshaas ha loo bilaabo Xaraale wax ka badan oo adeegyada bulshada ah oo runtii muhiim ah istaahilaan waxa kale oo soo helnaan ku soo biiri doonaa waxaan runtii ugu dhiirigeliseen sida aad u qabsateen oo aad isku tashateen oo aad gurmadka gaarka u gasheen oo wax badan u qabsateen waan dhiirigeliseen meeshii wax qabsataan waxbaan la qabanaynaa haddii la yiraahdo aad iyo aad mahadsantihiin